ما أقسى الحنين فلها الجدران قرصا غربة الأرواح أقسى زادني الشوق أنينا نزف الجدران قرصا غربة الأرواح أقسى نذكر الماضي الثمين حينا والساكنين عن حكايات الطفولة والبدايات الخجولة كيف زارتنا عزولة من شتات waxaan ku furfuranaynaa insha allah xalfadan sharafta badan aayadaha qur-aanka sifa kulankanaga iyo guurka labada dhalinyarada uu najax insha allahu sheekh yaqow falyatafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. ما شاء الله معلنك ayadaha qur-aanka iyo suuraddu noo akhriyey ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu anfaco isagana ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa iyo xifdigiisa qur-aanka allaha maaragtay ajri xasanaad ka siiyo. xalfaddan waxaa maanta tanu isku kana yeeray laba dhalinyaro oo walaalo ehel oo muslim ah oo raba inay dadka muslimiinta oo degan ay ka mid noqdaan. waa ninka la yidhaahda maxamed daahir xasan yahuuda haaruun cali. labadaas dhalinyarada oo walaalaha raba inay dadka muslimiinta oo degan ay ka mid noqdaan ayaa maanta isku kana yeeray. xalfaddaana saad ogtiin waa xalfad hordhaca xalfaddii weyneyd iyo kulankii weynaan wuu noo dhiman yahay insha allahu. middan waa nikaax hordhaca
waxaan rabaa inaan yeero waxaan maraynaa nidaamka insha Allah ee Soomaaliyeed oo wanaagsanaa oo diinta waafaqsanaa doonitaankii iyo weydiisigii iyo sisintii baan guda galaynaa insha Allah waxaan rabaa inaan u yeero Suldaan Cabdirasaaq oo gabadha dooni doona insha Allah Suldaan soo dhaw fali tafadhal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta magacayga marka hore Suldaan Cabdulqaadir Cabdirasaaq baan Cabdulqaadir إن شاء الله تعالى وما سنتين horta sida fiican ee quruxda badan xafada u soo qabasheen iyo sida noo soo ajibteenba hadii Ilaahay ku rooyahay waxaan rabaa in insha Allah تعالى codsado Huda Haarun Ali baan waxaan u doonayaa Maxamed Daahir Xasan إن شاء الله تعالى دول استاذ عبد الهادي له كوري هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي سلطان عبد القادر علم الربلا اللي هذا وحان كسوجنا قدبيرسي إن شاء الله قبلنا وحان كدونينا إن شاء الله تعالى قبيل كوين وقادينا كارهان عبدوا يا ابتياشد إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله. hoos ahaan diriira cawda waa laga koreeyo ogaadeen waa loo dhaxay talimuka u dhaxeeyo marka xubintaas ka soo booday waa aad u maasan yahay suldaanka waxaan rabaa in hadda ku soo dhaweeyo oo jawaabta kala qaadan doono insha Allah Sheikh Cabdiqaadir Sheikh Cabdiqaadir Cabdirasaaq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلك لعد صدي نصو مرتقاضي أدبي وباسين حضور كان خير كبضل intaana bixinin gabadha waxaa laga doonayaa waa kuumade markaas waxaa laga sii doonayaa absame laga sii doonayaa ogaadeen talamuuge cawdaq waa laga sii doonaya reer muusa laga sii doonaya reer farax waa laga sii doonaya waan umalaynaya annaguna abtiyaal baa nahay oo abtiyaashuna waa sade sadana soomaalida say u taqaano marexaan kaliya u yaqaanaa dadka inta badan laakiin sida waa facaye marexaan عرض كسران أما فعيو يا عرض كسران حاجة كلام مركي كومة اللي يرادنا أنا عرض واحد ما كومة أنا عرض بانونا هاي أتام فعينا هاي حاجة دارنا عرض باكنا هاي وسده هدي عرض هاي فعيا عرض واحد أنت أصلا تعرف هو مركا ما دام مريحان سده وجهه قبلها أنا نسلم بنا أنا كوينا وقبلها هذا نقول شرف هايين وحنوير يا سلطان قوسار وبيش مريحان سده أنا وجوابنا بحياة ونسلم بحنا فليتفاضل مشكورا. سلطان سودو wadaadku wuxuu kugu soo dhaweeyay inaad xariga ka jirtid soo dhawow qaybta qaada insha Allah oo abtinimo ama adeernimo بسم الله الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد. horta gabadha tolkiina weydiiyey waa mahadsan yihiin sidoo kale tolkii goosha dhigay oo gabadha ay ka dhalatay dhammaantiin iyo inta kasoo qayb gashay sifo kasta ugaasiyada iyo culummada iyo dhammaan odayaasha kale iyo dhalinyarada iyo gabdhaha iyo kulliin waa aad baan ugu mahad celinayaa intaan markii gabadha bixinteeda aadi Sheekh Cabdirasaaq gabadha inuu bixiyay ahayd oo mahadsan yahay horta inuu ugu sharfo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo tolka kale ugu sharfay ugu yeerayba oo reer maartay ama kuumada ama cabudwa la goosha dhanka hadda sida liigama yeerin waxa liiga yeeray dhanka maartay laakiin intaas oo dhan waxa fuuqsanay Sheekh Cabdirasaaq oo gabadha aad u bixisay mooyee anuu ma bixinay aniga waxaan rabaa asaga inuu bixiyo aad buu u mahadsan yahay gabadha la yiraahdo Huda Haarun Ali Suma oo loo doonayo محمد داهر
xasan anoo afkiina ku hadlaya iyo afka beesha ay ka dhalatay gabadha jifada hoose iyo korba inkastoo laga yaaba haddii rag iga dambeyn karaan oon booskooda u reebaya suldaan cabdiqaadir dee bishii horaan yuu gabadh i siiyeyo goolsaan oo kale aan isugu nimid wiilaan adeer u ahay ama abti u ahaa oo labadaba aan u ahaa baan intuu geeyey buu gabadh iisoo siiyey marka maanta wuu iga aadgoosanaya cabdiqaadir waa ku siiyey gabadha aad baa umaadsantii martabadiina kama tegin tiina idin siinayay waa bixinay gabadhaas walaalkay uu bixiyey meelahu ku noqdo ma jirto waxaana leeyahay hambalyo insha allahu tacaala walaalaha gudubirsa ama direed ee gabadhaana weydiistay anigoo ku hadlaya magaca beesha sade khaasatan abtiyaashii hoose ee facyo sade gabadhaas waana bixinay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo dejiyo oo noo xasiliyo walaalaha soo xaadiray iyo kuwa naga codsadayba waa mahadsantiin iyo kuwa nagu soo dhaweeyeyba maadaama aan la dhihi gabadhii uu iska wareejiyey ee dadayna aysan qabsanin gabadhii waa bixiyey insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alisalaam waraxmatullahi wabarakaatu hawsha weli kawuma joogto adeeryaashii baa dhiman oo weli xariga ka jarin intaan adeer la gaarin waxaan hadda rabaa inaan u yeero suldaan cabdi saxaardiid xasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت أنت أنا محمد كلمة مناسبة أنا شيء. وهو السلطان الشيخ عبد السلام وهو يسقى برا وتقول لك به وهو ينادي بمن كان قابل ونسى الكوفيات كشام. هو يرتقي بالهم والجلوسي يونس رجل. dadka waxaan maanta ku sii xasuusanaa daahiriya madaxweyne daahiriya mar waa jiif calalkiisi marna waa sultaankiisi marka sultaanka laga yimaado marna waxa weeye waa sultaankii dargooyi marka ninkan gaawanay oo dhawani inta marka laga yimaado isbarashada waa mahadsantiin toojir ilaahay muxuu ahaa naga yeelo waanu guddoonay gabadha waxaan socodsanaa هدى هارون علي عبدنا محمد طاهر حسن والنسيسة بهالكلام ما الله عيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته وآدي أدوم ما زي هاي سلطانك ولي وقوانا قالي عيال وما بيحين هايو وأنا ضد بدن أي بيحين ضد بدن مرخاتي كان نقدان وحان ربا هذا نينانو يارو دكتور واسمولي واسمولي تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda quruxda badan xaflad aroos ah haday noqon lahayd salaadiinta culimada odayaasha waxgaradka guud dhammaan nin waliba masabka uu ku fadhiyo ayaan ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa farxad xaflad farxadeed weeye waa guri waxaa weeye guryaha islaamka kusoo biiri rabo kolley odayaashii iga horreeyeen way wanaajiyeen aada iyo aad gabadhiina si qurux badan baa la isu siiyey waxaan u malaynaa meeshan markii la yidhaahdo daarood baa fadhiya waayo hadday meesha sidana goobta fadhiyo abtiyaasheeda kuumadana uu meesha fadhiyo qoladaa kale walaalaheenna gudabirsi waa dadaan ehelnahay waa dadaan walaalnahay waa dad weliba aan xaggaana jiiraan ku nahay dhan weliba waxaa weeye qoladaas waan isnahay khaasatan weliba markaan nahay kuumada amaba ogaadeenba markay noqoto okay gabadhii aad baan idiga mahad celinayaa marka qaabkaad arrintii aada usoo dhigteen gabadha iyo wiilkaana waan u ducaynaynaa insha allahu
inuu ilaahay gurigaa guri barakaysan ka dhigo waayo guurka xuduud ma leh waa dhakhaatiirta xuduud lahayd marka waxaan u malaynaa markii ugu dambeysay in la dalbaday siday degtay ku dhacaysay meheraan u malaynaa soo sidaa ma ahayn jawaabteeda ayaa liiga rabaa waxaan u malaynaa howl horay loo bixiyo laguma dheganaan karo gabadha waa sida nalii sheegay gabadha tol ballaaran bay ka dhalatay aada u ballaaran marka insha allahu gabadha waan idin dhammaystiraynaa meherkiina sidaad sheegteen waan idigu aqbalnay waa idin raacinaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu suldaanka aada buu mahadsan yahay waa qaata qaybtiisii gabadha waxaan rabnaa suldaano badan iyo odayaal badan iyo kheyr badan baa fadhido haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo doctor kaynaan gabadha adeerkeeda suldaan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كستو دستور سوماليات هل كانوا فرنو أنا كان متعلمين تا شمت كلو ما حيرة جرتا. وكو ولالك بروفيسور كيسو كريفريستي. أنا دكتور إنلي ركستو أكير حشودة. كير حشودة هذا لكني كله يبغى أصدق شيكتين. جوده والد كده لا كمدة هنا. sidaan noo weydiistayna gabadha waan bixina insha allah meherkii aada codsateena waan igu daraynaa anigoo ka bixin programka maxaan rabaa inaan afaasiyo professor waa ki sharciyan xagga mutacalanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرتبط ما سنتين مدخل كرامة ما تي بورما ولا لهن ونسوا ويدستين أقول يا برت شرفته سيدو والكي وتكينان وشري كينا وسيتي يعني مركا إكستا بارتي أن عرضت عدة أيه وحان مرينا يا بدك قبيلك إلهي وأمري إن تعارفوا نسكو أقوى كدي بحقه كوريسا إسلامك ولا عليه لما أرتي ميشا الوغي مادين وأتنا سنتين بدك بركيس وحمري ميشا بورا ما إلهي بيتو أركين لكن نصيب بارون هذا يعني بورا ما أن تبو أديسا كي مادي بورا مرة وان تبي بورا بجاري أنقل كان كعيا كوكاري كذا بورا أو ميرا صمري بارا أركاني كذا وده أن برا أن صمري أنا قلت عافمات كلام قلبك شقينا مركا ورايشنا سيدي مارتي أتشكتين سنتين واني نسي ولا ركين أو مارتي قيملي أو مارتي أوليجن أو مارتي مسؤولي وعن مارتي وطول الإلهي مارتي كبي أمة مسلمين أو وناكسن بيرن سيدي والد دوتر محيري هارون محل علي هو سلطان كميشة كيما هذه بورامي أو للمقع عليه وحنا مرينا عروتنا إلى جد كسر عيدنا يكسر عن حق الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه السلام ورحمة الله وبركاته وبروفيسور ومحسن هاي أسألنا ماشي هو نكسنيد بودجي وحالا ربا هنا عليك كده جنا سلطان عبد الرزاق عبد القادر سلطان سودو إن شاء الله تعالى وحن قدر سيء إن شاء الله تعالى سوريا دي إن شاء الله تعالى دقيقة يا عارف ما ده هنا دي لكون سوريا عادي إن شاء الله تعالى قد بني وحنا كنا يقدون تقول إن شاء الله سوريا ده بلاينا سنتهي السلطان سوريا وكان قدومي إلا وحوي وهي ورقبها جيل وحوي عرقي ولادي قريقي تمام بهذا بيجي هذا هو أيام ما أنت أصبحت الوسور هذاي جيلي يعرقي يحلودن هل كنا يكتيران ولا قدين هذا ما سنتهي ما كوري ما شاء الله سوري ولا قدومي وحان ربنا حتى إن نعدنا
waxaan noo fadhiyay labadii waalid oo cidda aan degayso aabbaha u ahayd wiilka aabiis waa fadhiyaa gabadha aabaheedna waa fadhiyaan ducada dambeeyaan siin doona insha allah intaana gelin aana gaarin waxaan rabnaa inaan galno qaybta ugu weyneed oo usoo soconnay oo hadafkeedu nikaaxayd insha allah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما gabadha ninka guursanaya wuu maqan yahay waxaa u aqbalaya daahir xasan baa u aqbalaya walaalkii baa u guddoomaya waxaa la isku waafaqay gabadha meherkeeda waa 30 garaam oo dahab ah noociisuna uu yahay 21 iyo kitaab musxaf ah oo qur'aan ah iyo qaalin geel ah intaasaa gabadha lagu meherinaya allah barakeeyo zawajtu ankaxtu wa zawajtu محمد داهر حسن 30 جرام ذهبا ونوعه 21 وناقة من الإبل ومصحف من القرآن بوكالة وليها إيايا مو أقبش وأنا أقبلي وأنا قدومي waxaan kuu guurinayaa waxaan u guurinayaa oo u meherinayaa ninka la yidhaahdo maxamed daahir xasan gabadha la yidhaahdo huda haaruun cali anoo wakiilka ah weligeedii meherkeedana uu yahay 30 garaam oo dahab ah oo noociisu yahay 21 iyo misxaf qur'aan ah iyo qaalin geel ah ma u gudoontay وأنا قدومي waad u aqbasha وأنا أقبل meherka asaga ah مهرك يسقى بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير الله بركيو الله بركيو غير كان الله دجيو غير كي دغا الله كدغو هو ترما الله wiilka abiisaan rabaa inaan kusoo wareejiyo farxadda asagana nala qaybsado insha allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد مرت شرفتا إن dhaqanka beelaha daarood dhaqanka beelaha direed aabbaha qiimaha sharafta iyo bilgaaga weyn maanta anoo aabbihii ah daahir xasan maxamed daahir xasan daahir ugu soo geed fadhiistay anuu wakiiliga yahay suldaanka guud
beelaha Gadabuursi Nairobi Kenya Huda oo si sharfan oo qiimo leh loo siiyay Huda Horan Cali waa guddoonay sidaa horeba loogu guddoomay Suudaan buu guddoomay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu labada caruur isku barakeeyo awlaad iyo arsaaqadna ay daadihiyaan farxad weyn bay tahay anigoo waalidkii inanka ah inaan goobjoog ka ahaado maanta meherka ka dhacay halkan ee sharafta qiimaha iyo milgaha huwan ee beeshii daarood ee u soo geed fadhiisanay sida maamuuska leh sharafta leh karaamada leh ay noo siiyeen annaguna aan uga guddoon taasaa farxad weyn aniga yaa haddeer sheekh baa yidhi inanta na siinaya ugaaska waa reerka naga doonaya abtirsiintiisa ku dar waa wax muhiima wey waan iskii baraynaaye waxaan nahay dir waxaan nahay Samaroon Gadabuursi waxaan degnaa gobollada Awdal Salad iyo Gabiley gobollada Somaliland baan deganahay sidii uu saaxiibkay sheegay Suudaan meeyihiin waa boqorka beelaha dirka weyn barasho wanaagsan maantana maamuuska halkan ka dhacay inankayga iyo gabadhayda aan maanta halkan meerkuu ka dhacay qiimahoodu wax la soo koobi karay maaho laba beelood oo dir iyo daarooda u soo geed fadhiisto kala doono isa siiyay farxadaasina oo wax muhiima maanta oo anigu xantaynayso aad ugu faali doono insha Allah aad iyo aad ugu faali doono dir iyo daarooda waa dad Soomaali ka soo jeedo walaalo ah sida odaygu halkan yiri waan isku dhowrahay buu professorkii reerka la yiraahdo Samaroon Gadabuursi ee reer Awdal waa run ugaas soo horay ugaas xal baan ka bixinaya kelmadda hadaan halmaamay aad iyo aad baan u soo dhaweynaya kelmaddaas oo waa run wax run ka dhawaajiyay dad isku eela isku dada isku dala isku diina isku dhaqanayaan si gaarana wax badan baan u wadaagnaa taasina runtuu ka sheegay goor gaaban hadalkeed gaaban waxaan ku soo gabagabeynayaa aabbaha gabadha dhalay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida sharaftan uu noogu soo dhaweysay ee marwadiisu Nairobi Kenya ma sha Allah Allahna caruurta isku barakeeyo martidana waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intii martiqaadka soo ajiibtay ee sharaftay labada reer ee qiimaha iyo sharafta milgaha huwan ee labada awlaadii ka soo kala jeedaan waxaan si gaar ah u salaamayaa professorka hadda soo galay aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan iloobay dee kolley ninka caanka la sheegaaye wuxuu inuu ka soo jeedaa dee dowladdii la isku oran jiray Soomaaliya ee geyga Soomaaliyeed ka tali jirtay dowladdii dhexe inaga burburtay General Faarax Cawaale Yuusuf oo haystay qaybta waqooyiga oo dhan jananka ahaa ayaa inanka awow ah waxa adeer oo awow ah madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Rayaale Kaay barashadaasina way dhibata taana waan nii sheegayaa halka kale gabadhu iyada culays weyn baa halkan ugu nimid dee waxa ka soo jeedaa beesha daarood beesha absame beesha ogaadeen caabud waa intaa sii dhaafi maayo waxa safar xad noo ah magaalada caabud waa qol lagu abtirsanayo waa wax weyn maanu oqoon laakiin barasho wanaagsan maanta aad iyo aad bayna noo farxad gelinaysaa marka meesha waxa ka dhacay wax weyn ilaahay ha sukeen barakeeyo nin aan dhul arag dhaayara baa la yidhi dee maanta safaarad ayuu u yahay Maxamed reerka uu gabadha ka guursaday magacaygu waa Ismaaciil Caraale gabadhana adeerkeedaan ahay inaan meesha ka hadlo ma doonaynin sababtoo waan soo dahay laakiin xoogaa markuu wadaadkii aad u hadlay ayaa aniga nafteyda inaan wax yar ku daro ayaan u istaagay waxaan xasuustaa sanadkii 1999 anigoo joogo magaalada Oslo waddanka Norway ayaa wiil culahan
markaas ogaaday kara waan ku yareen qurbaha wuxuu yidhi waxaan doonaynaa inay gabar la ii doono oo markaa gabadhana joogtay magaalo iyo Tobori la yiro waddanka Sweden marka waa weydiinay gabadha ay tahay marka nin shishigay buu ahay wuxuu yidhi gabadha goobisay marka aniga horta marka ay sheego anaga dadkeena halka qabiilo ma naqaano marka magacii aniga uu ugu cusbaa marka ay warka waa raadiyay markii dambe historigan helay marka gabadhii baan doonay anagoo dhalinyaro u badan marka because odayaal ma xaqalay professor hebel antigeedo professor hebel waakan adeerkeedo professor hebel oo ka soo baxay Oxford ninka wuxuu ka soo baxay Amuud Makerere anagii marka waxaan noqonay dad yaryar oo shibiro waa isla qalay marka ninkii odaygii nala socday uu isku dhaxay wuxuu yidhi warbeew anagna ma yaroo shiftaanahay gabar intaro professor antiga adeer iyo awow iyo walaalkeeda hooyadii hataa waxaa la waa professorada jaamacadda Oxford wax ka dhigta marka waa isku qalqalay marka maanta waxaan ku faraxsanahay meeshan inay fadhiyaan professorada oo iyadana la dhashay dada ama dhaleen marka waa mahadsantiin marka reerkan taariikhda ka hayno waa dadka ugu cilmi badan waddanka Soomaali markii la dhaho xagga shahaadooyinka PhD master iyo ninkii bachelor haysto ma wala la hadlo marka aad baan ugu maartay ugu faraxsanahay gabadheena inay reer noocaas gasho ayadana waxaan u malayaa inay PhD oo doonaan aan heli doono insha Allah hadduu ilaahay marka waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aw guuriyo baan leeyahay rabl muxuu ahaa wada iyo saygeeda aad iyo aad mahadsantihiin isku waara wiil iyo caana gabar iyo caana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo taa waxaan uga jeednaa inaan xagga sharciga gabadha ka khadarin bada difaac leeyahay kullu halkan la joogi maayo meeshii la joogo baa la isugu tagayaa taa horta wasaadooyinka kale xasan daahir wuxuu ahaa waa barisaadkii ugu dambeeyey ee gobolka Awdal birta banaanka la baxay weeye soo garabeysa marka kan waa koofida afraad waan laaway كنتاس ما يكون ترى يهديها إن شاء الله تنشر الله ينقل يارو وما وأنا فرح سنة هاي قبل أن نعبتدي تاي ويل كرا ما نادر وعمي نادر كيا وأنا فرح سنة هاي ريرها كلا الصومالية قيمة على نلجوجا ومرت الصومالية در يدارو هوية رحوين يبش سنات وضد اسود الله ويان وضد دقة وضد اسود إينيا وضد اسود دارا وضد اسود دقنا وضد اسود دها أنت هو الإسلام shalay haddaad adigu doonaysa gabar maanta adaa lagu geed fadhiyaa marka anoo afka dhalinyarada ku hadlaya mar kale waxa weeyaan dhalinyarada maanta meel walba ay joogto dhibaatooyin baa ku gadaaman markay guurka noqoto iyo markay noqoto doonista iyo markay noqoto calmashada marka aabbayaasha waxaa loo baahan yahay guurka inay fududeeyaan dhalinyaraduna ay raacaan dowga wanaagsan ee maaragtay wax loo doono insha allah mar kale waan ku faraxsanahay hal erayo laga tegay waa inaan ku daro geeyiga ummadda bulsho degan tahay Awdal iyo Gabiley iyo Salol kaliya ma aha dowlad deegaanka ayay degan yihiin Dirdhawe iyo Harar ilaa iyo waxa laga helaa Qorraxay iyo Qabri Dahra ilaa Daaway degan yihiin ummadda bulsho meelaha qaar Madalug baa looga yaqaanayo Taanuriif ay degan yihiin Jabuuti bay degan yihiin oo Arta iyo Cali Sameex ilaa iyo Tojoro iyo magaalada Jabuuti bay degan yihiin Eritrea ay degan yihiin oo qoybayda Sahal yiraahdo ayay bulsho qayb ka yahay marka ummadda bulsho waa ballaaran sidaa marka intaas aan rabay inaan ku daro quruxda iyo qiimaha halkaa lagu fadhiyana waxaan rajaynayaa in maaragtay reerkaasi caawale maanta leelayo in aanu u wada hibayno wanaag iyo isku duubni iyo inay noqdaan kuwo lagu soo gurto insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawo fali tafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين السلام على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومahadsantiin dhammaantiin labada qayb maaragtay maanta iska soo dooneen gabar iyo maaragtay si fiican maaragtay isku siiyeen anigu waxaan ka socdaa beesha gabadha bixinayso aad iyo aad baa maaragtay ugu faraxsanay gurbaana soo dhaweynayna haddii maanta la isbartee waa la sii baran doonaa soomaalida waxay tiray waxay dhahdeen waxaas dheeraaday guur baa lagu soo dhawey marka waxaa weeye wax badan baa mar dambe aan isbaran doonaa oo cidda laga tahay isma dhihi doono marka labadii isguursatay haddii kolloo meesha ma joogaan laakiin fariinta way gaaraysaa waxaan leeyahay mas-uuliyad baa saaran labadaa qof mas-uuliyad bay la wareegeen maanta
مسؤولية إنه جوري السيد إسماعيل أو جوري مسلمون نقطة أو أولاد مسلمين أو دين تاس وجرجاتو أي كائماتو لابد يقف ماشي السوق جوري أي حلك على جربا نمو البشر هو قف جيس سجت هاجر لكن ما أنت مسؤولية دوين بقاله مركب وحنا مدردار ما يا جوري جاس ما أنت ماشي الوجود السيد إن يتيرك أتكيان وجورياس عن كم قلنا هناك يا خير يا جوري مسلم إنه هذا جوري أنا بقول إسنا دلال ونك ليه هاي جبنا نتين هذاك بكتار جبنا لو قف يسكر سين حتى بيسكليه مدول بحد ولاد الولاية وما ارتساس كل سنة كرامك جوري أسجع مركا همبلي ولا يهودو يوم عرفتي محمد بوركينا ما تلاقي أبركيو أولاد خير أسر يجوري مسلم يجوري وناكسن يخير بأنك سوينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذا الله سيد جرمنا. حاول ربنا ولا الدول دي يومين كان أسكوب عيسين. الولاية سبركيو شر إلهك حجابه. ما بدو أسكوب تحضي أو إلهكم من على أولاد كلا يجي الولاية كديو. لا يبدو عيسين ما هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرواح أخزى نذكر الماضي الثمين حينا والساكنين عن حكايات الطفولة والبدايات الخجولة كيف زارتنا عجولة من شتات يحتوينا واسأل البيت الحزين أثنى الشيخ وأبمى جاوبينا أخبر القلب المعنى كلما بالحي حنى منزلا منا وفينا بسلام آمنين